halkan waa maxkamadda cadaaladda ee Hague ee ku taala magaalada Den Haag wadanka Holland. waxaan joogaa iridda hore ee maxkamadda cadaaladda ICJ-da. darbigana u jeedaan waxaa ku qoran ereyga micnihiisu uu yahay nabad. ereyga nabad markaan sharaxayo tusaale wuxuu ka bilaaban doonaa ereyga ugu horeeya looxan waa looxa adduunka oo dhan ku midaysan yahay ee ku qoran ereyga nabad. tusaale nabaddu micnaheeda sharaxaad badan uma baahno. ereygan waa nabad waa af Soomaali. sidoo kale waxaa ku qoran ereyada wadan walba ee lagu magacaabo nabad 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 China, English, Faransa, Kenyaanka oo iyaga naftirkooda dagaalkan ugula jira aadna ugu dagaalamaya inay badana ugu guuleystaan. laakiin shucuurta Soomaalida waxay tahay mid rajo wanaagsan muujinayso in dadkeenu ay ku guuleysan doonaan qadiyadda badeena. halkan waa magaalada Den Haag ee ku taala wadanka Holland. waxa u jeedaan dhismahan waa maxkamadda ICJ-da. dhismaheeda qaabka ay tahay u jeedaan waxa iskugu yimaado kumanaan qof oo kala duwan. magaaladan waxaa jooga hadda Soomaali doonaysa inay muujiyaan dareenkooda ku aadan qadiyadda difaacashada wadankooda iyo waliba badooda. waxaan la kulmay mid ka mid ah shakhsiyaadka Soomaalida halkan jooga ee sharci yaqaanada ka mid ah wax badanna sharaxayo haddii dawladda Kenya wafdigeeda imaan waayaan maxkamadan ay hortagi waayaan go'aanka maxkamadda ay ka qaadanayso marka laga tago dooda ama muranka labada wadanba. laakiin imaanshaha ay imaan waayeen wafdiga ka socda dawladda Kenya sidee uu xaalka noqon karaa waxa ii sharaxaya mid ka mid ah shakhsiyaadka halkan aan kula kulmay kana mid ah Soomaalida qurba joogta ee ku nool dalka Holland. baaqashada maanta ay ka baaqdeen sida la sheegayo imaatinkii dadkii imaan lahaa Kenya ama dacwada dib ay u dhigeen maxkamaddu ballanta dib uma dhigayso. sharci baa u ogolaanaya qodobka 36 37 ee maxkamadda u yaala in la yimaado lana dhigaysto ama maqnow ama ha maqnaan waa la dhigaysanayaa. dhinacyada kala doodahooda bay la soo baxayaan. dhinaca kalena qoraalada ka yiilay baa la fiirinayaa. dabadeedna isla maalinkii go'aan la gaari maayo mudday qaadanaysaa. muddada iyada ah waxaa ka soo baxaya go'aan lagu qanacsan yahay siday haddaba qadiyaddan muddo badan u soo jiitamaysay hadba la isaga daba meermeeraysanayay isaga daba noqonayay. waxaan filaynaa inay guul ugu soo dhamaato shacbiga Soomaaliyeed. khayr qalbigiina u sheega. Soomaalina meel kastoo ay joogto waxaan jecelnahay inay aad ula socdaan dhegtooda taagnaato ay arkaan mar walba wadankooda ay la socdaan ay taageeraan. dadku haddaan la istaageerin waxa weeye lama helayo. safarkaygii dalka Sweden aan kaga imaaday aan u imaaday dalka Holland ujeedadiisu waxay ahayd inaan la socodsiiyo Soomaalida kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya dacwadooda ka socota ICJ-da ee ku taala magaalada Den Haag ee dalka Holland. waxaan la socon doontaan toddobaadkan iyo toddobaadka xigaba waxa ka soo bixi doona magaaladan iyo natiijada ka dhalan karto markii ay Soomaaliya hor tagto maxkamadda horteeda iyo isbeddelkan hadda dawladda Kenya ay sameysay waxa ka dhalan karo. Zikriya Maxamuud Timcada, Universal TV, magaalada Den Haag ee dalka Holland.